madaxweynaha Puntland, madaxweynaha ku-xigeenka, ra'iisul baarlamaanka, madaxweynaha Jubbaland, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada iyo golayaasha wasaaradaha oo heerarka kala duwan oo dowladda Soomaaliya dhammaantiin waan salaamayaa idinka iyo shacbi weynaha halkaan fadhiya oo bulshooyinka kala gaargaarka ah oo mujtamaca ma wada tirin karaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin. wixii xafladan maanta loo dhigay sanad guuradii labaad ee doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland dee laga oran lahaa in dokumenti baa lagu sheegay in murti baa lagu sheegay in waxa akhriyay wasiirka warfaafinta akhriyay waxa kale oo meesha haray ma jiraan dee maalintii la doortay way happy birthday baan u leeyahay kaliya maalin dhalasho wanaagsan. waxaan ka marakacayaa labadaas sano oo ay soo jirtay maamulkan ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku maamulka gacanta ku hayeen in horumar fiican la gaaray. dee barlow maamul kasta oo jira adduunka oo dhan tabasho iska jirtaa oo hadda cid wax tabanaysa bariire waatuu lacagaha ka hadlaayay waan maqlaynay, laakiin anugu kolley waxaan ku qanacsanahay in inta uu sheegay xagga muxuu ahaye siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga iyo xagga amuuraha kale oo xaaladaha degdega haddii meel wax ka dhacaanba inay ka qaateen wixii kaga habboonaa iyo dib u habeynta administrationka dhammaantiisba iyo cashuur ururinta caqabadaha cudurrada iyo waxaas ay keeneen ka sukow aad baan ugu faraxsannahay. raalli baana ka ahay, dushaan ka eegaynay arrintan lacagaha iyadu waa arrin gooniya, dib baan ka sheegi doonaa maalin mar baan ka sheegay. waxaan ka hormarinayaa aan u sheegayaa martida kale oo aan reer Puntland ahayn sanadkii afraad weeye oo 8 January ay doorasho dhacdo. midkii u horeeyay wuxuu dhacay markii dastuurka oo ahaa axdigii qaranka 2005 kuwii ku xigay midna wuxuu dhacay 2009kii midna wuxuu dhacay 2014kii kii ku xigayna 2019kii. marka sidaasay ku soconaysaa, maalin dhaafi mayso. waxaan rajaynaynaa inay meelaha kale oo Soomaaliya oo maamulada kale oo xubinta ka dowladda federaalka saa noqoto. dowladda federaalkana hadda xilkeedu maanta cid u saaran yahay baa laga rabaa, cidda markaa maamulka gacanta ku haysaa laga rabaa. intaas waxay isku raaceen iyadoo dastuurka la waafajinayo. tii ugu dambeysay oo axdiga oo jiray oo 2005 ahayd baa la wada raacay dastuurka federaalka dowladda Puntland baa la raacay. marka in la fuliyo ballanqaadyadii waxa ugu weyn waqtigii xafiisku qofkii joogay markay dhammaato ama dib ha loo doorto ama cid cusub ha la doortee inuu doorashadii waqtigaa qabto. taas way dadka shacabku wuxuu sugaayeen. dadka waxay xiisayaan qof cusub ay xisaayaan, qofkii markaas laga maarmi weyna waa lagu celinaya. laakiin midaan midna ahayn dhibaato bay noqonaysaa sida hadda Soomaaliya ka jidho kale. waxaan rajaynayaa rajadaas madaxweynaha khudbadiisa oo ku akhriyay inay iyada alla u qaado, laakiin waqtigu waa ciriiro. waxaan u malaynayaa inaan muddada hadda ka hadhay maanta bishii 7 ay ahayd 8 bay ahayd maanta maxaa ka haray 8 kale bil baa ka hadhay inaan intaan lagu dhameeyo doorashadii iyo aqaladii labadii aqal in markaa madaxweyne la dooran karo. marka wixii kale ilaahay xal ka dhigo, ilaahay haynoo keeno, inoo sahlo amuuraha. marka hadday saasoo kale hirig u noqdaana haddee waxay ag taallaa qofkii markaas mas-uuliyaddaas lahaa. haddii maanta qofka maanta mas-uuliyadda leh wixii laga rabay laga waayo oo imaan waayo cid la wadaagtaa ma jiro. dadka intiisa kale waxba kama gelin, waxay ahaayeen fuliyaal. wixii lagu heshiiyo inay fuliyaan bay ahaayeen. waa maamuladan sheegaya. waxaan rajaynayaa nidaamkan Soomaaliya qaato federaalka oo hadda aan ka hadlayno aan ku gowracanahay khudbadii ay ku jirtay oo reer Puntland ay hormuudka ku yihiin oo ah nidaamka dib u heshiisiintii iyo dib u soo noolayntii jamhuuriyaddii Soomaaliya oo ay ku dhalatay jamhuuriyaddii saddexaad baan nagu bixinay federaalka Soomaaliya. madaxweynayaashii ka soo qabtay barnaamijyaashiiba ay qaar joogaan meesha caawaga ay fadhiyaan inay sidaa ku socoto ayaan ilaahay ka rajaynaynaa.
waxaan kaloo rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay iscafiyaan oo wixii dhacay ay iska cafiyaan oo dib u heshiisiin nidaamka federaalka ah ay ka dhamaystiraan waxa xilka u weyn saaran yahay haddii ninka marka maamulka sare oo dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanada mid isagoo victim buu noqday oo maamulkiisu aan meesha joogin oo isagoo Soomaali u joogo kaliya ayuuba victim u yahay laakiin ma dad la ummad muxuu ahaay saaxiib la oo ma garab la inta kala garab ah labada madaxweyne saddexda madaxweyne oo mid isaga gobolkiisa Israaci waayay iyo kan dariska ah galmudug iyo kan koonfur galbeed waxaan ka rajaynaynaa inay soo raacaan dadka inta sax ah oo dariiqa faxa doonaysa ay noqon dad loo taliyo waxa weeye Soomaaliya markii baarlamaankii ugu dambeeyay 1979kii oo dhacay oo meelo badan wax laga tabto dalka oo dhan wax kama wada dhicin anu markaa qardaan joogay waxa weeye meelaha wax ka dhaceen eeda waxa la saaray degmooyinka dhiisiyaasha ninka meesha joogay dhiisiyaasha boobay nimanka xildhibaanada boobay ama dawladda qayb ka ahaadeen ama yay ka ahaane waxa wax u boobay waa dhiisiyaasha marka nimanka madaxweynayaasha oo dawlad goboleedyada madaxda u ah oo galmudug ugu horeyso iyo koonfur galbeed iyo qoladeen haddeer aan wali israacsanayno iyaga halkood hadda adkaan doona laakiin ninka jawhar jooga inayan dhiisiyaashii 69 ay noqon waxaa loogu magac daray waaka kaftar ahaan iyo yasid ahaan waxa la oran jiray qofkii lala yaabo ruux aqli badan ama dhiisiba hadda waa other side road mugta waxaan ugu yeerayaa soo raaca dadkiina dawladnimada iyo dawladaha nidaamka federaalka wuxuu ka unkamaa state ka unkamaa dawladda dhexe waxa weeye qaybta ay leedahay kaliya laga rabaa iyo dadka inuu israaco intaasna waxaan uga gudbiyaa waxa maanta jira xafladda caawa ugu makaamilay waxa kaloo ii raaca waxa weeye lacagahan dhibaatada keenay hadda lacagahan waxa mas'uul ka ah oo xilkeedu saaran yahay bangiga dhexe Soomaaliya dawladda dhexe xukunta way jirtaa in lacaga la iska daabacay ilaa dawladda ay dhacday iyadoo la raacayo saxiixii maalintii ugu dambeysay lacagtii ugu dambeysay la saxiixay forgery ka weyn ka ma jiro dawladda maxaa siyaad maxaa u dambeeyey waxaa u dambeeyey 91kii January buu dhacay 26 January lacag lama daabeen sanadkaas waa wixii ka horeeyay saxiixa wali lagu wado waaga nimankii joogo saxiixay in badan baa dhimatay oo aan nooleyn markaas waa forgery lacagtoo dhan baa forgery ah cid kastaba ha samaysay laakiin waxa jira bacdama nidaamkii maaliyadda oo burburay oo dawladda dhexe oo san jirin waxa weeye meeshii markaas la leeyahay lacagtaas way ka shaqeyn kartaa baa la aadaa koonfur waa laga diiday maxaa yeelay dollar bay ku shaqeeyaan dawladda dhexe ku shaqeysa waxa lacagta furdada laga qaadaa airportka laga qaadaa mushaarka lagu bixiyaa munisibiya xamar baa waxay ku qaadataa kaliya cashuurta iyada iyo bajaajyada isku la wareegay taksiga iyo meelaha maqaadaha yarka shaah laga cabo wadan haduusan lacag lahayn dawladnimadiisu ma dhisna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu taas ilaahay dadka tuso madaxweynaha soo socda ilaahay dhawaan intuu keeno inuu halka ka bilaabo shaqada ayaa ilaahay ka rajaynaynaa tan hadda taala waxa weeye maanta waa ninkeed dhiba dadka haysta xoolahooda baa lagu qaatay waa gartood qofka lacagta haysta ama waxa laga siistay raashin ama waxa laga siistay dhul ama waxa laga siistay xoolo nool ama waxa laga siistay baabuur saas ugu soo wareegtay isagu ma daabicin isaguna male dibtiina waxay ku wareegtay ninkii gacanta ku haya iyo dawladdu ku noolaa midaan la isku soo raro way jirtaa waa la isku soo rari jiray laakiin waaga hadda waxa tira yaraa hadda aanu ma hubno tan anagu intaanu sameeyna xagga geeyno ugu soo noqotay sida la sheegay kullu ilaahi hiiraan waa la sheegaytaa iyo kuwii hore inay ku jiraan ma garanayno marka waxa fiican marka in haddii dawladda dhexe ay shaqeynayso in dadku dul qaato bal inta dawladda dhisay haddii dawladda dhisay mas'uuliyadda cid leh baa la rabaa in la dul laga saaro hadday imaanayn Puntland khasab waxay ku noqonaysaa inay lacag samayso sida Soomaaliland oo kale oo marka bangigeeda dhexe mas'uul ka noqdo wixii suuqa ku jira inuu isagu dib ula noqdo oo marka dadka kale u celiyo oo wixii siiyo waana jirtaa dawlad federaal oo dawladaha qaarkood ay leeyihiin lacagtooda ay leeyihiin adduunka way jiraan marka arrintaas waxaan jeclaa inaan si fiican uga sheego mas'uuliyadda afarta oo dawladda dhexe ka mid tahay arrimaha dibadda amniga ciidanka lacagta iyo
iyo immigration afartaas iyadeen cid wal mas'uuliyadda haday qaadato dalku waa hagaagaya anu waxaan maleeyahay khudbadii hadda oo aqriyayay timcade qaybta u dambeysay oo federation laga hadlayay inay ku cadahay taasna aan la isku soo gaban doonin waxaan kaloo dhiman waxa weeye haddii maanta canaadkaas oo meel xun la gaaro dowladda Soomaaliya burburaysa dowladda Soomaaliya inayan burburin systemku inuusan burburin ciddii markaa waxaa ka mas'uulin dadka inay tartiib u dhaafaan oo la yiraahdo dhaafa dowladda waaweyn baa mudaharaad lagu ridaa mudaharaad waa lagu saari karaa ciddii wax maqli weyda gacan iyadoo iyo qori aan la isticmaalo waa lagu saari karaa imise dowladeed baan u joogin inta mudaharaad lagu saari hatta boqortooyin baa ku dhacay oo kaga baxay hadday wax maqlayaan weeye aniga ciddii markaa wax maqli weyda ciddii dhaga oo ay ha maqashiiso hadday dhagaa wax ka maqli waayaan indhaha wax ku arkeen intaasaan ku dhameeyay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi.